labaatan sano ka hor adduunka waxaa loo sheegay sheeko keliya sheeko la yiraahdo dagaalka ka dhanka argagixisada laakiin maanta askariyad Mareykan ayaa qatay xaqiiq ka yaawisay adduunka 20 years ago I participated in a war on terror and today I'm having to come to terms with the realization that I was the terrorist. qaybta koowaad dagaalkii la bilaabay sanadkii 2001 kadib weerarkii 11 Sebtembar Mareykanku wuxuu bilaabay wax loo bixiyay dagaalka ka dhanka argagixisada ciidamo ayaa loo diray dalal badan oo ay ka mid yihiin Afghanistan iyo Iraq dadka badankood waxay aaminsanayeen daawada in dagaalkaasi uu ahaa mid lagu badbaadinayo adduunka qaybta labaad kirashada askariga laakiin 20 sano kadib askariyad Mareykan ayaa si lama filaan ah u qiratay xaqiiqan naxtin leh waxay tiri 20 sano ka hor waxaan ka qayb galay dagaal aan u maleynayay inuu yahay dagaal ka dhan ah argagixisada laakiin maanta waxaan aqbalayaa xaqiiqda ah in anigu qayb ka ahaa argagixisada hadalkan wuxuu gelgelay dad badan qaybta saddexaad runta la qariyay sanado badan kadib dad badan ayaa bilaabay inay su'aalo weydiiyaan maxaa dhab ahaantii ka dambeeyay dagaalka maxaa sababay in dalal dhan ay burburaan iyo su'aasha ugu weyn yaa run sheegay qaybta afraad quraanka iyo runta quraanku wuxuu leeyahay سيعلمون غدا من الكذاب الأشر beri way ogaan doonaan cidda beenaalaha kibirka badan ah daawada runtu mar walba way soo baxdaa xitaa haddii ay qaadato 20 sano markuuligaa beenan sheegay daawada su'aasha maanta taagan waa taariikhdu sidee ayay u xusi doontaa dagaalka ma wuxuu ahaa dagaal argagixis la dareemay mid runta laga qariyay adduunka adiga maxaad u malaynaysaa daawada